بسم الله الرحمن الرحيم maanta sida aad arkaysaan waxaanu nimid golaha aqalka sare xaruntiisii oo aanu kula kulanay guddiga arrimaha bulshada warfaafinta ayaanu kula kulanay gudoomiyaha iyo tiimkiisa senatoriska oo aanu runtii la wadaagnay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska hawlaha ay hayso arrintaas oo arrin dastuuriya sida gudoomiyuhu sheegay waajiba in wasaaraduhu ay gudiyada ay isku shaqada yihiin ee u xil saaran inay kormeeraan hawlaha ay hayaan markii waqti la joogaba ay warbixin ka siiyaan meesha wax u marayaan warbixin guud baanu siinay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxyaalaha ka socda caqabadaha jira horumarka jira iyo guud ahaan warbaahinta Soomaaliyeed ama dawladda ha lahaato ama dad gaar ah ha lahaadeen qaabkay u shaqeeyaan iyo sida wacyigelinta bulshada iyo dalku ay u socoto iyo waxyaalaha haysta warbaahinta Soomaaliyeed ama gaarka loo leeyahay ama dawladdu leedahay sidoo kale sida gudoomiyuhu sheegay waxaanu ka wada hadalnay sharciga saxaafadda oo golaha shacabku dhawaan ansixiyay kuna soo socda guddigan iyo aqalka sare ayaanu ka wada hadalnay waa shaqa maalmeed ama shaqa bileed noo taala mar walba inaanu kala war qaadano laakiin guddiga waanu update gareynaa meesha wax noo marayaan iyo iyaguna talooyin bay nasiyeen meelaha qaarkood sida aanu wax ku hagaajin karno marka shir aad iyo aad u wanaagsan waanu ku kala warbixin qaadanay oo qorshaha wasaaradda aanu u gudbinay iyo tubaha wasaaraddu ay ku shaqayso iyaguna wixii talooyin ay nasiyeen bay ahaayeen aad iyo aad u mahadsantahay